walaalo waxa weeye sidaan xogta ku helay markii dambena adiga ay xaqiijisay waxa ku haleelay xanuunka coronavirus xanuunka sidee buu kugu dhacay xagee baad ka qaaday aniga waxaan ka shaqeeyaa dhakhtarkaan ka shaqeynaya bukaan ayaana loo keenay bukaankii wuxuu ahaay bukaan caadi jira caadi iska qabo oo sheeg waxa la yiraahdo wax ku dhaca sanbabada cudurro ku dhaca kamid ah marka aniga si caadiyaan bukaanka ula macaamilayno calaashaan u daaweynayay mana malaynin inuu cudurkan qabo mana ka shaqaysaneen maalmihii dambe ayaa bukaankii waxaa laga helay calaamado kamid ah calaamadihii cudurkan hadda adduunka ku faafay la yiraahdo coronavirus marka calaamadihii markaan ku aragnay ayaa waxaa laga qaaday waxa la yiraahdo testigii ayaa lagu sheegay marka ugu koowaad inuu positive noqday kadib dadkii la shaqeynayo dhan ayaa la wargeliyay in cudurkan uu qabo bukaankii aniga marka 2 isbuuc ayaan bukaanka aan u dhawaay oon aad ugu dhawaay oon asiga bas iyo kuwa kale sorry oo shaqeynay bukaankii waxaan ku dhahay bukaamadii kale inta waa la gelin karantiirka anaga waxaan leeyahay jooga hadana wasaaradda caafimaadka la soo xiriirtay lambar la siiyay hadda waxa ay imaanaya qolada iga baareysay mar labaad in cudurkan iyo haleelay calaamado badan isku arkay cudurkan uu yaqaano in fiiraha aad iyo xanuunayaan oo sababada xanuunayaan naiftii dhibayso qac daran alxamdulillah shukr inta shabadan malihi aniga laakiin intaynan u guda gelin waxyaabaha dareemayso markii bukaanka xanaanaynaysan xanuunka laga helay ka bacdi baaritaan baa lagu sameeyay oo lagu ogaaday in xanuunka qabto Soomaa waxaa la yiri marka dadka la shaqeynayo dhan waa inay guryahooda joogaan imaan karaan shaqada ma garatay waayo haddii anaga aan shaqada imaano bukaamadii kala sii qadinina oo ayaga u gulay ma garatay waayo anaga hadda alxamdulillah shukr cudurro ma qabo oo ii sheego cudurkan intii kala sida sokorta kale dhiigkarka kale ay cudurrada wadnaha ku dhaco kale aniga ma haysto waxa la yiraahdo jarmalka ku dhaca niman diagnosis ama cudurka adiga oo ii sheeg kula nool ma qabo marka alxamdulillah shukr anaga kala hadda inaan ka badbaadna laga yaabo laakiin aniga waxaan u yara baqaynaa ama u baqayaa dhaqaatiirta in dadka meesha joogo in cudurka sii qaadaan oo dhakhtarku ugu daaweynayay markii xanuunka laga helay oo lagu sheegay dareenkaagu sidee noqday wala horta aniga baan fiican horta qof islaan ah alxamdulillah shukr ilaahay aaminsan markii aniga calaamadaha isku arkay adiga la qabiis ilaa hadda isku arkay horta aniga kooda iskama shaqsaneen marka waxaan iskaga maleynay hargabka caadiga ah markii la yiri cudurkaas oo qaba bukaanka aniga aan u dhawaay marka aan dareemo waxa ayaan tahay inay ahaayeen cudurkaas oo la jiifay oo la xanuunsanay markaas waxaan dareemay cabsi ay gashay been inaan sheego ma fiicno waxaan sheegaa wax runay cabsi ay gashay dhimasho ay soo sabarantay hadda ilaaha isku waxaan alxamdulillah waxa intaas ka badan baa adduunka waa soo aragtay wadan aniga waxaan ka imaaday habeenii maalin biyaha dhacay xabad dhaceysay ilaahay kuwaas ba kaa soo badbaadiyaan maanta lagu kaa badbaadi karaa fayras jirkaaga sooga ilaahay kala saaro ولي بنا هلا هو يسمع حد يسوع مر القرآن يسوع أخيانا عني القرآن أخذت ساكي جركي قدنا مريء مركا كلنا جوا دكتور معلن الله ما بحنا إلي أرجع حقنا وحوا سيد هرجع كل خلاء كلي وحده لي هرجع كل خلاء ناخذ منه كله وسنبض نصفي عن كعجة أبارو أرجع تذكر حلو بين استجيان قريه جوان هدي بنا كأنا هنا أفكر دوتان ما قرأته واقعي xanuunka markii laga helay ma dhakhtar baa lagu dhigay mise gurigaaga lagu yiri ku sugno maya dhakhtar ma dhigayo dadka dhakhtarka la dhigayo waa dadka maxaa la yiraahdaa oo neefta aad u neefsi karan oo la siinayo oxygen bas dhakhtarka hadii lagu dhigaayo lagu siin karo ma adiga cudurkan calaamadihiisa un baa laga daaweyn karaa maana cudurka lagama daaweyn karo calaamadihiisa laga daaweyn karo maxaa waaye in hawo lagu siiyo neefska markuu kugu dhalo إن قندلي لقادتيو أو عربة القصية كنيني قندجبنت أنا فلانبري قندجبنت أنا إن هذه إن سندم وما وحلي رعاوق وبطنا الوصيو داوين عاوق كايرين أنا عذر قلت لها داوينه دكتور كلا دكتور إيه دكتور حيين وعذر كسيئات ودلو ذا ما قرأت أنا هرت هاي مدلو كل جينا نشوفه وأنا جو واحد أجي على إيش كله نجيب إلى عليه نفس الدعاء
aad isheeg istiraahadoo gurigaaga joogtidoo aad isku daysid inaad wax fiican cunto fiican cuntid oo cuntooyinka sida anaga Soomaalideen aan jecelnahay markuu hargabka ugu dhacay inaan cunno kaleeto sida inaan maraqa cunno kaleeto waayo waxaa ka helaysaa awood badan inaad isheeg aad digirta kala cunto kale way fiican tahay inaad isheeg sanjabiisha badsato way fiican tahay si uu adiga ugu yaraan wixii kaaga yaraadaan waa gartay hadda saacadan la joogo maxaa dareemaysaa aniga saacadan la dareemo horta alxamdulilah shukr waxaa sheegto waa dambe hadda wax badan saas uma dareemay saacada markaan soo kacay sariirta soo kacay ayaa naqaskii ugu dhaganaay neeftii ugu dhaganeed tiiraha i xanuunayaan qufacay hadda xitaa qufici badna waa iga yaraada waa intaa ila xallidaysay hadda shaah sanjabiil lahaan cabay ma garatay waa gartay sanjabiil xitaa caawinaysa inay kuu furfurto maxaa la dhahaya dhuuntii meesha hawamareenta inay kuu yara furto hadda waan yara cabay sanjabiisiyaan yara cabay iyo wixii hadda alxamdulilah shukr waa roonahay laakiin walaalo mar walba wuu jiraa waayo ma ogid beri si ay noqon doonto xaalkaaga ma garato waxaana waa cudur waxaa lasoo daawo loo hiid ma garatay waa gartay hurdadaada oo kale sidee ahayd alxamdulilah shukr ana xal si fiican u seexda anigu la-aan oo la xal seexda shalay markaan aniga shalay markii la sheegaya cudurka ani dhakhtarkaan joogay aan ka shaqaynayo ma garatay waa gartay shalay waan cabiray temperaturkeyga cabiray waxaan arkay temperaturkeyga inuu sareeyo marka waan dareemaya inaan shubax aan liito haddana markaan gurigeyga imaaday waan casheeyey si fiican u casheeyey waan qubaystay jirkaa saliid marsada quraan aan akhrisada jirka dhanaa iska mariyey ilaaha kala saarta waa iska seexday waa madaalanaabo waqtada walaa si fiican u saakay waxaan kacay 8 kacay oo weliba taleefanka ay ugu kicisa maclimadeeda waa inaan iskoolaan dhigta arday ah oo habeenkii aan dhigta ma garatay ugu kicisay tiri waxaa ku soo wacaysa wasaaradda caafimaadka markay kusoo wacda lambaraa lagu siinaya oo lagu imaanayo guriga ma bixi karti guriga joog ma garatay waa gartay marka wasaaradda marka hadda saaka iga soo hadashay lambaraa la isiiyey hadda markaa ayaga imaanayo waxay ga qaadayaan caawuqa lambarkaasaa marka anigana la isiinayo lambarkaasaa marka ka ahay dadka xanuunka qaba cabsi ma jirtaa ah bacdamaa iskuul dhiganaysay ardaydii oo kaleeto iskuulka la dhiganaysay inaa xanuunka ay kaa qaadeen oo kale waayo aniga horta galaaska aan dhigtay galaas yar waayo galaas badan muuse ahayn horta taasa ilaahay mahadiis ah dadkii meesha joogan dad farta badan oo ardayda badankeedana ma wada joogin wax yaraa joogay marka ardaydiina waa la yiri macluumaadii u sheegtay oo information ku gaarsiisay in aan cudurka laga helay ardaydaasna ii sheeg ayakana maxaa la yiraahdaa inay guryahooda joogaan hadday isku arkaan calaamadahaasi ee la xiriiraan wasaaradda caafimaadka lambarka waa loo qoro ma garatay maclimadana waxay tiri adigana guriga joog ha ka bixin ayadaa hadda wasaaradda caafimaadka waxaa lagu soo xirtay anigana waxaan ka ahay qofka keliya ee koolka hadda cudurkaas kaga dhacay xanuunka sida waxa weeye jirta oo aa og tahay waa xanuun faafa oo maxaa ku dhahdaayey ay fududahay in la kala qaado dad Soomaaliyeed oo kula degan kuwa ehelka ah kuwa meesha kula jooga oo is aragteen oo ay isleedahay dadkaas halis way ugu jiraan in xanuunka ka qaadaan ma jiraan horta aniga asxaab badan ma liidad saaxiibo badan ma lihi waa ilaahay maadsi inta cudurka hadda qabanaya horta baaba shaqeynaya badan kiskoolna waa aadayay dad badan oo calaashaan oo heli wax iyo asxaab iyo lama kulmin wallaahi gabar meesha mooshi joogta agteeda amar u taga shala waana u bayar baqayaa idan waan laakiin saaka waa ogeysiiyey waxaan dhahay arrinkaas jiro la soco ma garatay si ay iyadu macnaha isu baarto oo kale haddee calaamadaha oo kale isku ma taabanin waa la hadla base wax daqiiqad yaraan la joogo waana ka soo tagay maasha allah mar haddaad gaarsiisay haddii aad dhakhtar ka shaqaynaysay rajada ah qofku inuu maxaan ku dhahdaa xanuunka ka kaco way sarreysaa laakiin muddo intee la eg bay ku qaadan kartaa baa la yidhi qofku inuu xanuunka ka kaco sida normaaliga oo caadiga qofka 2 isbuuc ayaa la karantiilaa ma garata 14 bil ma garata marka qofku waxay ku xiran tahay hadba difaaca sidoo adigu u wanaagsan ma garata si fiican difaaca fiican yahay marka qofku sidoo asiga uu jirkiisa uu reaction ugu sameeyo ku xiran tahay qof waxaa laga yaabaa inuusan dareemin cudurka inuu ku dhacay asigoo qaba laakiin wuxuu halis gelinayaa dadka kale oo sii qaadsiinaya ma garata qofna waxaa laga yaabaa
uga dhigto hadduu difaaciisa liito qof waxaa laga yaabaa inuu ku dhaco laakiin haddana ka kaco laakiin dadka sida badanka la sheegayo waa 2 isbuuc qof caafimaadka baratay oo ku shaqeynaysa baa tahay dalka Jarmalka ku nooshahay wuxuu ka mid yahay dalalka uu faraha baan xanuunku toddobaadyadii ugu dambeeyay ku hayo waa sida xaaladda guud ee Jarmalka horta wadanka waxaa la geliyay xaalad emergency ma garatay waxaa hadda jira wax la yiraahdo xitaa in iskoolada la xiray in maxaa la yiraahdaa meelihii isku imaanaya sida meelihii ciyaarihii meelihii dadka xirfadaha ku dhigana wixii oo dhan waa la joojiyay barnaamijyadaasi waxaa heegan la geliyay ciidamadii heegan la geliyay xadudihii cirka dhulka badda meel kasta heegan la geliyay shaqaalihii caafimaadka dadkii gaboobay calashaan shaqada ka fariistay waxaa la yiraahdaa imaada waa inay nacaawiyaan wadanka heegan oo ku jira qof kasta oo nacaawi karo inuu nacaawiyaa oo qaabilsan caafimaad dadkii dibdimiska waxaa la geliyay oo qaabilsanaa inta shaqo ayagoo ku leeyahay caafimaad waxaa la yiraahdaa heegan gala ma garatay dadkii kalkaaliyaasha caafimaadka heegan la geliyay mid kale waxa ugu sii yaabka dadka waxaa la yiraahdaa caafimaadka ka shaqeeyo waa dadka ugu dambeeya oo cudurka laga baari doonaa ma garatay waayo hadda talyaaniga dhibka haysta wuxuu yahay caafimaadka systemka dhan wuu isku dhaxyaacay waayo dadkii shaqaalaha ahaa ayaa wada xanuunsan guriyihii wada joogay marka dadkii yaa daaweynaa dhakhaatiirta marka waxaa la yidhi qofka cudurkan 2 qayb u kala baxaa qayb oo aad u daran iyo qayb oo iska yara caadiga qofka marka waxaa la yidhi qofka yara caadiga qabo qofkaas kale shaqada waa inuu imaado ayaa la yidhi isagoo wato shuts waxay yidhahdaan shuts maqaaya difaac sanka inuu xirto kale dib markiisii wixii oo dhan uu ku xirto uu shaqayn karaa ma garatay Jarmalkana ra'iisul wasaaraha wuxuu sheegay ama wasiirada wadankani waxay tiri 70% wadanka cudurku wada haleelaya wuu nagu wada dhacayaa ilaa iyo dhamaadka 2020 ma garatay cudurkani wuu soconayaa wadanka dhan wuu haleelaya 70% marka waxay tiri dadka looma baahna inay sheekada badan sameeyaan qof walba uu ku dhici doonaa oo wadanka joogo laakiin tarisida waa in anaga aan caafimaadkeena hadda anaga aan kasii taxadirnaa aan kasii hortagnaa oo aan ku dadaalnaa siiba nadaafad ma garatay waa gartay waxa noo sheegtaa dhowr calaamadood ay isleedahay waa u muhiim oo dadka halkan ka daawanaya oo kale ka dhageysanaya oo kale hadii ay isku arkaan ay tahay inay xanuunkaas maxaa ku raadayay ay iska baaraan inta baaritaanka natiijadiisa ay helayaanna ay isxakamayaan oo bulshada ay ku dhex jiraan ay xanuunka ka ilaaliyaan waxaa kamid ah sidaan ugu sheegay inay horta kooda isku arkaan qufac halalan runta inay sheeg xanuunto in fiiraha kuunaan ama fiiraha ma dhihi karnay sanbabada aan nahnay Soomaalida laakiin fiiraha iska dhaan gudka sanbabada ku xanuunaan in maxaa la yiraahdaa neeftaada aad neefsamaysid caadi marka u fadhido kala neefsi karno in kor isku qaadeen qoleys neefta ku yara dhibayso in qandho badan isku aragto qandhada hay kamida in mar walba aad indhashaysid waa sida hargabka oo kale calaamadihiisa oo kale laakiin wuxuu dheeriyaa kaliya in uu neefta ku dhageyso ma garatay waa gartay qofka markuu ku dhaco maxaa khibrad oo hadda xanuunka kala kulantay oo aad dadka u gudbinaysaa maxaa kula talinaysaa qofka markuu ku dhaco inuu sameeyo qofka aniga waxaan kula talin lahaa horta qofka hays ogaado waxaan ka wadaa inuu horta hore u xanuunsanaan jiray oo cudurro la noolaa in uu yahay in uu immune systemkiisa u leeyahay ama difaaca jirkiisa yaryahay markuu intaas isku arko inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu la xiriiraa uu dhakhtar la tashtaa uu dhakhtarkiisana u sheegaa waxyaalaha uu asiga uu la noolyahay laakiin hadduu qof dhalinyaro oo caadi oo caafimaad qaba yahay waa inuu wasaaradda caafimaadka uu wargeliyaa gurigiisa uu jooga oo saqafiya marka ayaga marka wasaaradda caafimaadka fariisanayaan markay fariistaan waxyaalaha adiga ay ku leeyihiin inaad gurigaada joogtid iyo in dhakhtar lagu soo diro ambulance lagu soo diro dhakhtarka uu dhigaa waayo qofka hadduu cudurkan wiishay uu la noolyahay cudurro kale uu dilayaa ma garad guriga ma joogo waa in dhakhtarka la dhigaa si hawo loo siiyo oxygen loo siiyo waa in naqska ku dhigaa ma garatay waa gartay marka macnaheedu waxa weeye qof walba oo xanuunkan uu ku dhaco yuusan filan ama u qaadan in hore isbitaal laga dhigayo oo uu daaweyn ka helayo hore isbitaal aniga hadda kula hadlaayo ana horta cudurro iyo lama nooli wax lama waa qof caafimaad alxamdulillah haddana sidaas inta guriga jooga sida caadiga u noolahay waxa kaliya oo laga rabo lambarkaas oo la siiyo ah u dhacay cudurkan
waxyaalo kaalmaanta lagu siinayo oo kaa yareenaya calaamadaha cudurkan kaa yareenaya ma garad sida in qandhada lagaa jibiyo kale waxaasna aniga hadda waa samaysan karaa waa gurigana hadda daawo waa ii taraa ma garatay waa gartay marka xanuunka lagaa baarayo kale qofka marka la baarayo baaritaan noocee ah la mariyaa waxaa laga qaadayaa carabkoostiisa waxaa lagaaga ama afka waxaa lagaaga qaadayaa bahal afka lagaa gelinaa lagaa marmarinayaa waa la qaadayaa waxaa lagu soo baarayaa laboratoryga oo qaabilsan viruska ma garatay laboratoryga wuu kala baxaa mid baara gooryaanada mid baara bacteria mid baara viruska marka midkan waa midka viruska baaraya ma garatay marka coronaska lagu sheegayna waa groupyo oo isha waxaa kamid ah viruska ma garatay marka groupkan marka waa laga baara marka coronaviruska asiga groupyo kala duwan marka groupyada kala duwan marka groupku yahay laga baara marka group halista ah inuu yahay inuu groupki halista ahayn marka coronaviruskan wuxuu ka yimaadaa xayawaanada ma garatay aad iyo aad ugu dambeyntii dadka Soomaaliyeed halka ka daawanaya maxaa kula talinaysaa waxa jira dad badan oo wadankii ku nool inagoo og wadankeena inuusan nidaam caafimaad oo adag lahayn haddana aad loogu walwalayo dadka Soomaaliyeed meel kasta adduunyada ku nool yihiin oo halka ka dhageysan doono ka daalcan doona maxaa kula talinaysaa gabadhii waxaan kula talinahay horta anaga Soomaalidana nadaafada horta waan ku wanaagsanaa badanka in nadaafada aad loo ilaaliyo in Soomaalida dhaqan lagu yaqaan jiray sanka farta gishtaan oo kale waxa sanka maanta dhan mariyaan inay iska daayaan inay gacmahooda dhaqdaan inay gacmahooda wajiga ka ilaaliyaan in mar walba waxaan ku dhahay contact ay la sameeyeen dadka isku hab isdiinin salaamin qofka gacanta xabadka iska saaraan dhahaan ayagu hal mitir u dhaxeeyo kale salaama meesha saqolaado arko qofka inuu qufacaayeen please and please u sheeg dadkaas ama hadal tuga sheegay yaana gacanta lagu quficina gacanta meesha kasta shaqadeeda saan loo saabta loogu qufaco yaan gacanta saan loogu qufaco waa hada gacanta ugu qufacay albaabka taabanaysa shay kala taabanaysa ama qofka ku salaamaysa qofkina sidaas u sahlan kaaga qaadaya marka dadka waxaan kula talinayaa markii calaamadaas isku arkaan oo kaleeto أنا سومالي بحاول أنا إني وزيرة أيضا هذا ذاتكي ميل وكاركتير سي وسبيسة إني لحد إلى الدولة ده لما رجوني روس مايو دكتاس إكوي إكرام من دكالتنا دكتاس كيو الجوجان المحي دكالتنا إسكا يرفوجيا ما قرأتي aad baan kaaga mahadcelinayaa sida uu ogolaatay inaan wareysiga kaaga qaado waxaan ku rajeynayaa soo kabasho degdeg ah iyo xanuunkaas in lahay waxa weeye uu ka bogsiyo daawadayaal ama dhageystayaal saan hore idinku sheegay gabadha magaceeda sawirkeeda iyo magaalada ay degan tahayba idinlama wadaagi karo iyada saa iga codsatay waana sida caadiga ah maadaama laga yaabo inay bulshada qaarkood ay kala kulanto soocitaan oo kale ama fuquuqitaan oo kale walaalo aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa sida qiimaha wareysiga noo siisay